bismillaahi raxmaani raxiim wacanow wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadii arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona xilligan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeya duqaymaha iyo dagaalka mar kale dib kaga bilowday dhanka israa'iil iyo falastiiniyiinta diyaaradaha dagaalka israa'iil duqaymaha ay ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta wararkii ugu dambeeyey ciidamada jabhadda oromada oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr ah guulan ay ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka etoobiya qaramada midoobe oo laga dalbaday inay cunuqabateyn ay saarta maraykanka sabab la xiriirta 2 sano guuradii ka soo wareegatay dilkii loo geystay jenaraal qaasim suleymaani qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka ku soo dhowow markale maracadda show ka dhiiba aragtidaada qodobka ku soo jiita waa 2 bisha Janaayo ee sanadka 2022 u diyaargarow inaad daawato macluumaadkaasi oo dhammaystiran waxaan ku hormari doonaa xiisad adag ayaa ka taagan dhulka falastiiniyiinta iyo israa'iil dhexdeeda kadib markii xalay israa'iil diyaaradaheeda dagaalka ay duqaymo ay ka geysteen qaybo ka mid a marinka go'doonsan ee khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana lagu warramayaa khasaare xogan inay ka dhasheen duqaymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka falastiiniyiinta diyaaradaha ayaa duqaynta ka fuliya saldhigyo xamaas ay ku lahaayeen koonfurta magaalada khaza waxaana lagu warramayaa ilaa iminka inaan la ogeyn khasaare nafeed oo ka dhashay duqaymihii ugu dambeeyey xiisad adag ayaa maanta ka taagan marinka khaza waxaana lagu warramayaa dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka soconaya inay samaynayaan guutooyin ka tirsan ururka xamaas ee ku sugan dhulka falastiiniyiinta israa'iil waxay sheegtay duqaymahaasi inay jawaab ay ugu dhigaysa 2 gantaal oo maalintii shalay ahayd looga soo riday dhanka marinka khaza oo ku dhacay badda dhanka Tel Aviv sida macluumaadka lagu helayo mas-uuliyiin ka tirsan ururka xamaas oo warbaahinta la hadlayna waxay sheegeen in gantaaladaasi ay ahaayeen kuwo ka fakada oo si kama aana loo ridin kadib markii cimilada ee aad ay u qasantay ma jiraan wax faahfaahin oo ka soo baxaya wararka ay warbaahinta gobolka ay sheegayaan oo ku saabsan inay Masar ay bilowday inay Israa'iil iyo Xamaas u kala dabqaadayso si looga hortago dagaal labada dhinac ka dhex qarxa marinka khaza ayaa deganaa tan iyo bishii May ee sanadkii tagay xilligaas oo Israa'iil iyo Xamaas uu dhex mara dagaal soconaya muddo 12 maalmooda sirdoonka dowladda Masar ayaa door weyn ciyaaraya muddooyinkii ugu dambeeyay taasi oo ku aadan in mar kale xiisad aysan ka dhicin deegaanadaasi sidoo kalena dhinacyada dagaalamaya aysan hub noocyadiisa kala duwan isu adeegsan waxaa kaloo arrintai ku soo beegmaysaa maalmo un kadib markii ay kulan ay yeesheen madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas iyo wasiirka gaashaandhigga israa'iil Bene Gantz kaasi oo ka dhacay guriga uu degan yahay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil waxaa laga digayaa mar kale sanadkan 2022 in Israa'iil iyo Xamaas ay martigeliyaan dagaalo dhex mara iyadoo macluumaadkeennii xalayna aan kugula wadaagnay inay suuragal tahay 2022 inay martigeliso 10 ka mid a dagaalada ugu waaweyn ee dunida ka dhici karaya haddii aan xal laga gaarin intii lagu guda jiray sanadkii la soo dhaafay 2021 ciidamada Israa'iil waxay sameeyeen dowladtusyo xiriir ah iyagoo ku tababaranaya siday ugu diyaargaroobi lahaayeen dagaal dhowr jiha ah Israa'iilna ay doonayso inay weerarto xarumaha nuclear-ka ee Iiraan waxaana dhanka kalamaanka ay ku haysaa inuu furmi karayo dagaal 3 geesood ah oo ka dhan ah Israa'iil kaasi oo kaga bilaaban kara dhanka Xisbullah oo Lubnaan ah dhanka Syria iyo sidoo kale dhanka daanta galbeed oo kooxda Xamaas ah dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda sare Israa'iil ay dhowr mar ay ku celceliyeen in ay filayaan in xaalad kacsanaan oo ka dhacda gobolka iyo marka lagu daro dagaalka internetka ee Iiraan kala dhaxeeya ay xiisada sii kici karayso barnaamijka nuclear-ka ee dowladda Iiraan waxaa lagu qeexay inuu yahay khatarta ugu daran ee soo food saartay Israa'iil iyo ammaankeeda qaranka iyadoo dhanka kale xogaha qaar ay sheegayaan in Iiraan ay helayso aqoonta iyo waayo aragnimada lagama maarmaanka u ah hubka nuclear-ka sidoo kalena ay ku socoto kobcinta barnaamijkeeda nuclear-ka oo heerkii ugu sarreeya gaaray sidoo kale falanqeeyaasha waxay qabaan in qalad kasta oo ay galaan Tehraan ama Tel Aviv ay hurin karaan dagaalo dhinacyo badan leh balse Iiraan ayaa lagu warramayaa in halista iminka dhankeeda aysan ka imaanaynin Israa'iiliyiinta ayaa sidoo kale waxay doonayaan inay iska adkeeyaan weerarka 3 geesoodka ee kaga imaan karaya dhanka Lubnaan weerarka kaga imaan karaya dhanka Syria iyo buuraha Golan Heights iyo deegaano kale oo dhowr ah waxyaabaha ka soo kordha dagaaladaasi macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah markaana aan eegno ciidanka xoreynta oromada ee OLA ayaa sheegay inay horumar weyn ay ka sameeyeen dagaalo ba'an oo ka dhacay deegaano ka tirsan galbeedka iyo bariga gobolka Shewa oo ka tirsan gudaha dalkaasi Itoobiya dagaalka ayaa dhex maray ciidamada dowladda Itoobiya iyo dagaalyahanada OLA waxaana uu sii cuslaaday sida la sheegay kadib markii aagag hor la dagaaladu ay gaareen jabhaddan waxay sheegtay inay qabsatay deegaano ku yaala galbeedka bariga iyo sidoo kale waqooyiga gobolka Shewa dhanka kale diyaaradaha dagaalka aan duuliyaha lahayn waxaa lagu warramayaa inay si weyn uga qayb qaadanayaan dagaalka ka soconaya gobolka Oromiya ee u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo jabhadda OLA
dagaaladan ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeesheen dadka deegaanka. dowladda federaalka Itoobiya ayaa markaan u jihaysanaysa gobolka Oromada kadib markii ay u muuqatay inay guulo ka gaartay dhanka iyo jabhadda TPLF oo TPLF lagu go'doomiyo deegaanada gobolkooda. dowladda ayaana weli ka hadleen guulaha isdabajoog oo ay sheeganayaan ciidanka xoreynta Oromada. si kastaba dagaalka ka soconaya Itoobiya ayaa yeelanaya wajiye hor leh. muddo sanad ay dagaalada halkaasi ka soconayaan waxaana jabhadda TPLF iminka u muuqataa inay ku go'doonsan tahay deegaano ka tirsan gobolada dhacdhanka waqooyi ee dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigreega. xiisadda halkaasi ka taagan waxaa door weyn ka ciyaaraya diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn kuwaasoo dhanka kale u rogay dagaaladii ugu dambeeyey ee Itoobiya ka dhacayay. qaybaha ugu dambeeya haddii aan egno xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu shaacu ka qaaday in Maraykanka diyaar u yahay inuu tallaabo uu ka qaado saraakiisha ciidanka dowladda Suudaan ee hortaagan in talada dalka lagu soo celiyo dowlad rayida. Antony Blinken wuxuu sheegay saraakiisha ciidamada ugu sarreeya haddii rabitaanka shacabka Suudaan ay meel mari waayaan cawaaqib xumo inay la kulmayaan. Maraykanka wuxuu ahaa ruuxii markii horeba ka shaqeeyay afgambiyadii ka dhacay gudaha dalkaasi ee Cumar Xasan al-Bashiir daaqada looga saaray waxaana marar badan saraakiisha dowladda Suudaan ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan in ay xukuumad rayid ah ay ku wareejiyaan talada dalkaasi Suudaan. Iiraan haddii aan eegno qaramada midoobay waxay ka dalbatay in cunaqabateyn la saaro dowladda Maraykanka wixii ka dambeeyay dilkii shirqoolka ahaa ee 2 sano ka hor loo geystay Generaal Qaasim Suleymaani. Qaasim Suleymaani ayaa wuxuu ahaa kumaandarka ama taliyaha ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxaana lagu dilay kadib markii duqeymo ay ka dhaceen magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq. howlgalkaasi oo sababay in la burburiyo gaadiidkii uu la socday sidoo kalena waxaa lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda Ciraaq kadib markii diyaaradaha droniska ee Maraykanka ay gantaaleen la eegteen gaadiidkooda. kadib markii qoraal loo diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dowladda Iiraan waxa ay sabtidii shalay ku dalbatay in cunaqabateyn la saaro Maraykanka sabab la xiriirtay inay si sharci darro ah ay duqeyn kaga fuliyeen gudaha dalka Ciraaq laguna dilay saraakiil ka tirsan dowladda Iiraan. arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo ay tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii la dilay Generaal Qaasim Suleymaani. 3 January 2020 ayaa Qaasim Suleymaani lagu dilay magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq. madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Trump ayaa dilkaasi amray waxaana uu xilligaasi sheegay inay ka guuleysteen mid ka mid ah jidgooyooyinkii hor yaalay Maraykanka. qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno waxaa soo baxaya warar sheegaya in ra'iisul wasaare Roble uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado taliyaha ku-meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka fikiraya inuu xilka ka qaado taliyaha ku-meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey sida macluumaadka aan ku helayno. Roble toos xilka ugama qaadi karayo Yaasiin Farey hase yeeshee wuxuu horgeyn karayaa golaha wasiirada oo leh awoodda xilka qaadista. Yaasiin ayaa waxaa lagu tilmaamaa gacanta midig ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo ra'iisul wasaaruhu tuhunsan yahay inuu caqabad ku noqon karo hufnaanta doorashada sidoo kalena ay jiraan danooyin kale oo isdiidan. sida muuqata ra'iisul wasaare Roble ayaa qaadaya tallaabooyin dhowr oo lagu cadaadinayo Yaasiin Farey ka hor inta uusan si toos ah xilka looga qaadin. dhowaan wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa Yaasiin Farey ku amray in warbixin dhameystiran uu ka keeno sababta iyo halka uu ku xiran yahay Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. hase yeeshee Yaasiin ayaa waqtigii loo qabtay ku soo saaray warbixinta. mar kale wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa Yaasiin Farey shalay ku amray in dhammaan ciidanka nabad sugidda laga soo saaro garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isagoo faray in ammaanka garoonka si buuxda loogu wareejiyo ciidanka booliiska. wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyay in go'aankaasi la qaatay kadib markii ay bateen cabashooyin laga soo gudbinayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Yaasiin Farey wuxuu hormuud u yahay khilaafka haatan taagan ee dib uga soo dhex cusboonaaday ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweyne Farmaajo. macluumaadka kale ee soo baxay waxay sheegayaan in wasiirka amniga uu soo saaray amarka nabad sugidda looga rarayo garoonka diyaaradaha kadib markii dhibaato uu kala kulmay ciidamadan oo ku sugan gudaha garoonka diyaaradaha xilligii ay soo dhaweynayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. falanqeyntii siyaasadda arrimaha sirdoonka ee Marcad Show waa naginta macluumaadkan kan xigeentaan ku kulmi doona nabadgelyo.